aqoon-yahan axmed cabdi jaamac oo ka mid ah aqoon-yahaniinta gobolada sool sanaag iyo cayn oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hoygiisa ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee gobolada sool sanaag iyo cayn sidoo kale wuxuu dhaliilo xoogan hawada u mariyey siyaasi cabdilaahi jawaan waxa uu sheegay in ninkaas uu ka baan sheegay taariikhda waxaana hadalladiisa ka mid ahaa sida tan bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan ummadda islaamka ah ummadda soomaaliyeed ummadda reer SSC salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa maanta waxaan halkan usoo fadhiistay war-saxaafadeedku daaran yahay inaan ka warbixiyo xaaladda maanta gobolka sool degmada laascaanood ay marayso maalintii 14aad 16aad dagaal saaka ay soo qaadeen jabhadda SNM sheegata maamulka Somaliland gooni goosadka ah ee uu madaxweynaha ka yahay hogaamiyaha ka yahay madaxweyne maaha ninka la yiraahdo Muuse Biixi gacan ku dhiigle Muuse Biixi saaka salaadii ayay laascaanood weerar ku soo qaadeen waxa weerarkoodii ay soo qaadeen waa ku jabeen kadibna waxay sameeyeen sidii caadadu ahaan jirtay inay magaaladii ku hogaamiyaan maraafiic iyo BM maraafiicdaas oo iyo BM kaas oo ay ku garaaceen magaalada dadkii maxasta ahaa iyo dhulkii ay deganaayeen ismadu sida oo garaadkii maanta hadlay garaad Cabdikariin uu sheegay waxa ay la heleen maraafiicaas ku dhufteen afar garaad guriyahooda garaad jaamac garaad Saleebaan garaad jaamac garaad Ismaaciil garaad Cabdilaahi garaad Saleebaan garaad jaamac garaad Cali iyo garaad Cabdikariin ka hadlayayba guriyahooda waxa ku dhacay maraafiic ilaahay waxba kuma yeelin oo ilaahay dulmiga ma gargaaro iyagana si weyn ayaa loo jabiyay oo wax loo yeelay waxaan marka doonayaa inaan ummadda islaamka ah iyo dawladda federaalka ah iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysaba u sheego iyo hay'adaha dawliga ah in waxa socda maanta 16aad ay yihiin wax cadaawada oo ah tirtir oo ay doonayaan dadkan reer SSC inay nimankaasi ku tirtiraan iyagoo maamul la sheeganaya qabiil la ku dagaalamayo intaasi waa inta waxaan doonayaa inaan halkan uga jawaabo nin la yiraahdo Cabdilaahi Jawaan oo leeyahay yiri sheegtay inuu ahaa SNM nin buuran oo xalay ka hadlayay maxaan ku raadayay saxaafadda Hargeysa ninka Cabdilaahi Jawaan la yiraahdo waxa leeyahay yiri markii aan wareystay qabiilkiisa anu garan maaye waa Arab baa leeyahay waxa la yaaba oo aan ilaa hadda la yaabanahay reerkii la oran jiray Arab miyuu rogmaday sidan ma ahaan jirin dadkoodu aqligan ma lahaan jirin ma dadkii miyay rogmadeen oo miyay baabeen mise dad aan taariikhda waxba ka hayn oo rogmanay baaba'aya ayaa dadkii ka haray oo aqli u noqday Cabdilaahi Darawal baan maqlayay oo arkayay wuxuu ku hadlayay waxaan maqlayay islaantii adna oo la yiri ku muusanow dulbahanti oo ay ku dheh waxaan arkayay waxaan maanta arkaa ninka la yiraahdo Cabdilaahi Jawaan Cabdilaahi Jawaan wuxuu yiri dagaalka aad wadaan dhulbahantow joojiye buu wuxuu yiri SNM markii ay soo gashay waxa ay go'aansatay waxa laba hal bal isweydiiyay dadkiina la dagaalamayay dawladdii federaalka ahaa qaarna raacsanaayeen qaarna ka soo horjeedeen oo uu markaa sheegayo in aan anagu nahay ku dawladda raacsanaa miyaynu ka argoosanaa mise waa heshiinaa aan heshiinaa lagu go'aansaday buuri oo la saamaxo baa lagu go'aansaday anaguna maanta awooyaalida oran maayo buuri waa hadaladiisii laakiin waxaan leeyahay dawladda u hogaansama oo nabadgelyada ogolaada horta waxa la yiri nin iyo magacii way isleeyihiin Jawaan baba awalba lagu yiri umana marayn maayo anigu arabkii na dhalay noociisii ma tihidin waayo arab hadda tihiin taariikhda xusuusan lahaydeen Faarax Nuur markii arab la isugu tagay la doonay in la gumeeyo oo nasabada laga saaro Faarax Nuur laascaanood buu yiri dhulbahanta laba garaad buu lahaa garaadkii Faarax garaad iyo kii Maxamuud garaad labadii garaad oo maqan buu yimi dhulbahanta odayaashiisa intuu la sharay wuxuu yiri Faarax Nuur awooyaal arab socoy baaba nimanka reeraftigiinaha aniguna waxaan idinku yimi de gunimaan waa gumownay inaad ii furtaan meel yar oo aan kabaha ku tolo oo reerka ka biisho garaadadii baa warkii loo diray labadii garaad oo soconaya yimi sir weyn loo qabtay war waxaas aan oran baa la yiri annagaadna dhasheen ma annaga gun noqonayna waxa doonaysan sheego rag hub iyo fardo rag waa haystaa buu yiri
waxaan kelmadda idin lahaa waa idin eegaye waxaan idinka baahnahay rasaas iyo hub iyo fardo waxa la wixii arabu u baahnaa waa bixinay horta waxaan u sheegayaa Cabdilaahi Darawal iyo ninka iyo Cabdilaahi Jawaan taariikhdiina dib ugu noqda oo waxa aynu sunahay hadii waxa ishaanay ay jirto sidaanu idinku helinay ama u heliya ama dad abaal gudi kara hadayda ahayn afkiina naga haysta war afkiina naga haysta oo naga daaya u soo raaca isaaq oo dhan bay isku raacayaan idinka helinay war mar uun gumbaan abaal guda oo hadalka noogu heliya kaliya taa idinka arabow inta idin dhaaf maayo oo ehel bayna oo dadhigiina nagu jira aad baan idinku sii nuxnusan laakiin ma samayn karayo waxaan doonayaa inaan mid kale ka idhaahdo taariikhda uu yiri Cabdilaahi Jawaan dadka waa la saamaxay horta waxa hadda nagu leynaysaan hadalka Cabdilaahi Jawaan weeye oo waxa weeye dawladda siyaad bare baad noo leynaysaan waa iska cadahay waa cadaatay jaamac garaad Ismaaciil baa wuxuu yiri oo garaadayada ah baa wuxuu yiri hadii aad naga goynaysaan wixii dawladda Soomaaliyeed dad u dhintan waana dad looga aarana waana u leenahay dulqaadkeeda horta waa cadaysateen wixii siyaad baraa daarood ahaa oo wuxuu noo goystay baan idinka goynaynaa baa cadaatay taana saa ku biicaba horta waxaan sayidii sheegay xusuusinaya dagaalkii SNM iyo Somaliland iyadoo dawladda hadda tiraadeen heshiis baa lagu qaatay oo ummadda Soomaaliyeedna ogeysiinaya gobolada bariga sida gobolka Sool ilaa iyo Sanaag dagaalku waa ka socday waxaana dhacday in lagu xasuuqay degmada Xudun 9 nin oo waliba isku beel ah oo Naalay Axmed Dagoble iyo meesha la yiraahdo higlada qalloocatee ban cabde in lagu laayay iyadoo calanka Soomaaliland loogu soo gabado loo yiri calan baan idin wadnaa nabadgelyo horta taas ogaada inaan dagaalku joogsan waxaana idin cadayna dagaalkii dambe ee maxaan ku dhahdaa ka dhacay Damal Xaqre waxa kale oo cadayna heshiiskii lagu galay kulaal Muuse Abakar iyo Maxamuud Garaad ku heshiiyeen iyo Awrbogays inaan waxa soo dhan aanay jirin aan cidi heshiinin oo aan waqtiga 19 sheegaysaan aan waxba la wada dhigan horta saayidii cadaynaysa waxa kale oo cadayn maxaan ku dhahdaa biyo kama dhibcaan u noqonaysa inaan heshiiska 19 loo dhameyn oo aan dhulbaanta idin qaadan heshiiskii ceeri gaawa ka dhacay garxajis iyo dhulbaante iyo warsangeli iyo habar jeclo ay ceeri gaawa isugu yimaadeen oo waqtigu yahay aad garanaysaan oo shalay ahayd oo waliba ilaahay ka soo anagu sabab aha waxaan idin leeyahay marka waxa sheegaysaan waa been ee dagaalku yiri ka xumaanin annaguna waxaan salaadiinta isaaqu sheegaya waxaan guurtiga isaaqu sheegaya waxaan u sheegayaa odayaashooda maamulkoodan ay sameysteen ee goonigosadka ah ee argagixisada waxaan u sheegayaa dagaalkan wadaan waa isir tirtir weeye waxaadna ku tirtireysaan dhulbahante waana daarad nacayb waxaadna saadinaysaan dagaal daarood iyo isaaqi inuu dhaco iyo idin la xumaanin waxba irir iyo waxba ha ku meeraysanina dhulbahantaadis haysaan dhulbahantana diyaar buu idin leeyahay hadalka u dambeeya waxaan doonayaa inaan kelmad idhaahdo reer kaliya daarood baan doonayaa inaan kelmad idhaahdo daarood waxaan idin leeyahay waxa lagu leynayaa waa magac daarood qabiil baan lagu leynayaa 16 maalmood buu nagu socdaa dagaalku 16 maalmood buu nagu socdaa anagu waa isku filanahay rag waa isku filanahay waxaan lagu garaacayaa maanta anagu ah infantry hadii isaaq oo dhan isugu tago oo Soomaaliya oo dhan isugu tagto xabad infantry oo la isugu yimaado oo nin iyo nina cidnaga agkarti kartaa ma jirto waxaan la dhacaya waa madaafiic baan la dhacay waxaan idinka codsanaynaa mifadlakum hubka noo soo dira waxaan laga dagaalamayaa ilaa Djibouti idinkana intaas aan leeyahay nimanka la yiraahdo absame iyo ogaadeen iyo absamo isku dhan waxaan leeyahay xarsin iyo meesha la harta siiqa wiilashii laga soo ururiyay qaar qabateen hadda xarsin ku qabateen iyo hubkoodii ayaa la sacaanood ka dagaalamaya oo halka kaga soo duulay waa dul degantihiin way ognahay inaad ficilamaysaan dadka maatida ah ee idin soo qaxay ee dhulbaante ee reeraysa yimina waxaan idinka codsanaynaa inaad guriyo bilaasha siisaan inaad mucaawino u qortaan inaad maxaan ku noo soo damaanad qaadaan inaad maxaan ku idhaahdaa hadii ilaahay leeyahay waxbarasho bilaasha siisaan saasa oo aad tuurta ku qaataan baan idinka codsanaynaa waxaan kale idinka doonaynaa gacani waan loo goodo absamow gacani waan loo goodo waxa halka ka dhacaya in xarsin lagaga soo duulo sidii odayaashii way sheegayeen iyo harta siiqa idinkoo dul taagan damiirkinu isin maayo waa ogahay tallaabo degdeg ka qaada
oo aan halkaa ka soo bilaabo xabadda oo aan isugu nimaadno lafaruug aan isugu nimaadno haddii ilaahay idinkeeda leeyahay dadweynaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay xaaladda maanta joogta iyo adduunyuhuba iyo indhaha ka qarsanin haddii kale 2 milyan ee dhulbaantay marka ay maanta dhaqaaqaan oo dagaalkaasi faraha ka baxo oo meel laga soo qabta la waayo hadhow eedana saarina waa ka sii afeefanaya waxa la yiraahdaa ma afeefaro lahow ama adkaysi dambe dagaalkaasi dagaal xasuuqa weeye waa dagaal sirtirtira weeye waxaanu idin sheegaynaa oo Soomaali u sheegaya oo uga digaya dagaalkaasi faraha haduu ka baxo isirna ay buu tagaya meel kasta oo isaaq iyo daaradooda degaan buu ka bilaabmaya meel laga doono hadhow la gaari maayo hadhow cidna laguma eedeeyo aad baan idin salaamayaa